magacaygu waxaa la yiraahdaa Xabiib Maxamed Cukaash waxaan ahay qaxootiga Awbare waxaan ka mid Soomaaliya 2006 hadda waan baxayaa inaan soo adeegto ayaan rabaa maadaama la sooman yahay kulay dad bini aadan oo walaal ah darsna inuu iska jiraan inaan soo qaraabo salaamana waa jeclahay meeshaan markaan soo dageynay waxay ahayd dhul aad cidlo u ah qolada aara hygiene barometerka ayaa noo dejisay warama maxaa haysin xaalkiina waa okay sama calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waram xaalkaas maasha allah walaah maasha allah waa ido saaxibi waram khayr sooma fiicantahay maasha allah xaaladaada suuqa waxaa jooga dad badan oo macaarifo nahay waxaan u imaaday inaan maadaama xalay aan kala seexanay inaan salaamo waxay ku baryeen caafimaadkooda hawshooda ayaan u imaaday kadib hadda waxaan adeegii aan qaatay waxaan ugu talagalay inaan xaafadayda ku noqdo markaan sii socdana waxaan rabaa haddii ilaahay yiraah in aan sii maro gabar saaxiib aan nahay بريهان ما أركنه والله أنا قلت أساسا قلبي وكوبات ما تحسوا بس قلبي وكوبات ما تحسوا والله الحمد لله أدينا وكسر الله نسرع الله نصي رب خير قبل الله نوكل آمين كل كام كنا نبت قليل سادوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي هنوضه آمين نبت قليل إن شاء الله مركا خير أسكو أبنه وهذا صوص سلام يحلم مجرى واسكسي سعوننا مركا هاي واسي سعونا هاي qorshaha isugu imaanayna wuxuu ahaa in aynu ka wada hadalno water point-yada ninba inta u dhow macnaha inuu dayactirkeedii dhibaatada ku timaado uu ka taxadaro maxaa yeelay annagaa u baahan haddaad u mahadsantiin ana salaadii baan aadayaa hadda alxamdulilah salaadii waa tukaday waanan dhameeyey dhalinyarteenu waxaa weeye waxay u baahan tahay waxyaabo badan horta in laga wacyiyo marka maadaama aan hooyo u ahay mar kastoo tala bixin ayay i weydiiyaan waxbay talay iila imaadaan waxbay arrin bay iila imaadaan wixii markaa fikirkayga aniga aan isleeyahay waa kula qurux badan yahay ayaan u sheegaa hooyana waad ogtahay waxay jeceshahay mar walbo in ilmaheedii uu noqdo ilmo wanaagsan macnaha ilmaha marka la leeyahay kaad dhashay oo kaliya maaha waa dhammaan dhalinyarta kaamka joogto annagu waxaan jecelnahay in dhalinyarteenna ay noqoto kaamka Awbare ku nool inay noqoto dhalinyar mustaqbal leh wax barato